magaalada Gaarisa sanad walba waxaa soo mara marxalado kala duwan kuwaas oo raad ku reeba balse aan laga gaashaaman oo noqdo kuwa caadi ah oo ay bulshadu la qabsatay marxaladahaas waxaa kamid ah fatahaada uu sameeyo webiga Tana oo ay ku teedsan yihiin beeraha soo saara qudaarta maalin walbana la keeno magaalada Gaarisa laguna dhex iibiyo loona beecgeeyo xiriyaha qaxootiga ee Dadaab ismaamulka Wajeer iyo Mandera laakiin beeraleyda magaalada Gaarisa waxay maara u leeyihiin fatahaada webiga Tana oo sanad walba markuu karaaraha soo jabsado ciribtira dalagga beeraha khasaaro fara badanna ay ka dhalato guddiga suuqgeynta xoolaha nool ahna gudoomiye ku-xigeenka beeraleyda dalka ayaa dawladda dhexe iyo tan ismaamulka Gaarisa ka dalbaday inay wax ka qabtaan fatahaada webiga uu sameeyo sanad kasta ee soo noqnoqotay beeraleyda Gaaris bishii sagaalaad bishii tobnaad bishii 11aad oo waxaa nagu dhacay fatahaad daad labaatanki iyo 2019 markii aan ka soo baxnay haddana ayax baan ugu habsaday haddana maanta inaad ka warqabto ma ogi biyaha shalay soo galeen warkii u dambeeyey ee la soo tabiyey waxaa weeye warihii waaweynaa ee biyaha lagu kaydinayay inay buuxsameen la soo sii dayn rabo oo allaat waxaa la bixiyey digniin la leeyahay tanariba agagaarkiisa ha laga guuro ha loo kaco meelaha buuraha waxa isweydiin la waxaa weeye coronavirus waa wax hadda un kow fatahaadan 2012 ayaa waxaan biimaynay waxaan fiirinay oo dhahnay bal aan khasaaraha aan qorno Sangur iyo Garissa town labada location labadaas division 720 milyan bay noqotay khasaaradii beeraleyda ku dhacday ilaa maantana in hoos looga sii socdo ma ogi wax faa'iido ma leh marka waxaan codsanaynaa county government iyo dawladda weyn in intii la iskaashado hadda coronavirus baaba wax walbaba ka horeeya bal in xal loo helo fatahaada Tana River waa waxa loo heli karo biyaha waxaa la heli karaa in la jiido oo daamam weyn laga hagaajiyo webiga agtiisa oo biyaha intay soo galaan markii fatahaad ay imaato daamamka buuxsamaan haddana webiga ay gadaal ugu noqdaan oo beere iyo irrigation laga sameeyo shirkadda Kengen ee biyaha kaydisa ayaa soo sii daayeen biyihii ay muddo badan kaydinayeen taasoo markasta keenta in webiga buux dhaafo shirkadda ayaa isbuucan bulshada ku nool webiga hareerihiisa ugu baaqday inay ka guuraan oo goobo kale ay raadsadaan inta webiga uu fatahaada wado sidoo kale wuxuu soo hadal qaaday siyaasiyiinta dalka hadda ka wada arrimo siyaasadeed iyadoo cudurka COVID-19 uu faraba'an ku haya dalka nolosha shacabka Kenyaanka ahna ay si xumaanayso maalinba maalinta ka sii dambaysa waad aragteen gaazeediyaha waxaa laga hadlay Jubilee iyo ninkii meesha fariisan lahaa iyo ninkii meesha fariisan lahaa waxaas hadda waqtigan ma loo baahan waqtiga wadanka uu ku jiro crisis dhibaato uu ku jiro oo intaasoo ruux inkastoo dhimashada hadda Yurub iyo aan dhaano laakiin dhimasho waa dhimasho hal ruux hadduu dhinto haddii 5 ruux dhimato oo wadani oo cudur dhimasho caadi aan ahayn ay ku dhimato xanuunkeeda iyo waxay leedahay saameynteed dadka madaxda political leaders nimanka la dhaho dawladda mar walbaba xiisadaha kicinayn waxaan leenahay madaxweynaha iyo dawladda hal la siiyo fursad ay coronavirus uga hortagaan iyo dhibaatooyinka kale ee faraha badan ee iyadana ay dhali hal la daayo group iyo magacyo la soo bixiyo tanga iyo kieleweka iyo waxaas in la daayo umba ilata aniga xisbiga Jubilee dad badan baa memberin iyaga kelima laho
markii waqtigeeda la gaaro oo coronavirus laga baxo nin walbaba ambirta dhinacuu raba ha u laado laakiin hadda hal isxakameeyo dowladda ha lala shaqeeyo waddanka wuxuu waddanku ahaan karaa inuu ismaqal jiro dhanka kale waxaan wax ka weydiiyay gudoomiyaha sababta Soomaalida aysan ugu hoggaamsamin amarada ay soo saartay wasaaradda caafimaadka si looga hortago faafitaanka cudurka coronavirus waxaan nahay qabiilka ama dadka wax yar kali laga qoray laakiin haddana dhaqankiisa carry forward la iska dhaxlo oo intaas oo qarni maxaa ka mid ah annaga dhaqanka annaga waxaaba ka mid ah ninka xagga hadduu intuu kaa istaago salaamu calaykum ku dhaho oo san salliga ku saarin weli inaad wax tabani oo leedahay muxuu rabaa ninka inaan salliga isa saarno isku duubanno inay tahay dhaqanka annaga midda labaad haddaad xaafo tagto ama cid tagto inay dhaqan noo tahay in gambar lagu dhigo biyo lagu siiyo shah lagu siiyo ama wixii lagu heli karo waxaa dhaqanka annaga ah in anigana xagga aan cunto la fariisanin adigana xagga aan la fariisanin oo cuntadii la wada cuno marka dhaqan adag oo soo jireen ah ayaa jira maxaa dhee qabiilooyinka kale ma qabaan baadiyaha haddaad tagto dariska ilaa hal mawlac buu ku afuri nin walba wuxuu hayo meeshaasuu keeni waqtiga ramadaanka marka waxaan u malayni dhaqan adag oo soo jireen aan qabnaa laakiin waxaa weeye dhaqankii naftiisa markii uu ku khatar gelin waa inaad gooni iskaga dadka wuxuu fahmi laaya waxaa weeye waxaan hadda waxaan aan aragno culayska uu qabo inuusan ahayn inaan sidii hore ku soconno halka hadalka keliba dadka yaa weli ka dhaadhicila war dhaqanka annagii waxa annagii intaan meel dhiganno waxaan khatarta leh nagu soo na soo wajahay aan khatarnimadiisii u aragno markii laga baxo haddii ambirta nin walba dhinacuu rabaa u laado daruuri ma aha in intii meel la fadhiisto maanta oo dhan BBC maxay tiri iyo waxaas maxay tiri iyo radio Hargeysa maxaa laga sheegay ma aha daruuri aniga waxay ila tahay dadka Soomaalida waa isku dad waxaan nahay dadka keli ee ijaara oo badweynta India Lamu County ku dhow iyo Djibouti intaas isku dad oo loo kala afturjubaanayn oo isku dhaqan marka